munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen Almas General Trading Company iyo shirkadda saliidaha ee ADNOC ayaa ahayd abaalmarinta macaamiishii ku xidhnayd shirkadda ADNOC ee saliidaha waxaana lagu abaalmarinayay 12 macaamiil oo kamid ah macaamiishii ku xidhnayd shirkadda ADNOC ee soo saarta saliidaha waxaana halkaasi lagu guddoonsiinayay abaalmarino qaali ah oo isugu jira moobilada iPhone-ka iyo tigidho ay ku tagayaan dalka Dubai. shirkadda Almas General Trading Company iyo shirkadda saliidaha soo saarta ee ADNOC ayaa ah munaasabadii ugu horeysay ee si rasmi ah ugu abaalmariyaan macaamiishii ku xidhnayd. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay madaxa iibka iyo suuqeynta ee shirkadda ADNOC ee saliidaha Axmed Yaasiin Maxamuud waxaana uu ka warramay munaasabadan lagu abaalmarinayo macaamiishii ugu wanaagsanayd ee shirkadda ADNOC. ujeedka xafladan waxa weeyaan mahadnaq dhiirigelin iyo abaalmarin loo sameynayo dhammaan macaamiishii ka faa'iidaysatay dhiilkii aynu ku soo birdhignay xafladii ka horeysay April-aadkii bishii shanaad aynu qabanay macaamiisha ka faa'iidaysatay dhiilashaas oo dhammaantood halkan ku sugan waxaa loogu talagalay abaalmarino ay shirkaddu dib wax ugu calinayso dhiirigelinna ugu dhigayso. intaa ka bacdi waxaa kaloo doonaynaa inaan halkan ka shaacino ka shirkad ahaan in la furi doono dhiilal cusub oo iyaguna laga faa'iidaysan doono waqtiyo kooban muddo kooban ka bacdi la sii dayn doono dhiilkaa cusubna oo lagu sii dayn doono macaamiishna la sii socodsiin doono. geestooda waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay qaar ka mid ah macaamiishii ku guulaystay abaalmarinta ay bixinaysay shirkadda ADNOC ee soo saarta saliidaha iyagoo uga mahadnaqay wada shaqaynta fiican ee ka dhaxaysa shirkadda saliidaha ee ADNOC. muddada dheer waxaan ula shaqaynay kule wax weeyaan waa qanacsanaanta macaamilka ama aan ku qanacsanay adeegyada iibiso ama barnaamijka soo saarto annagu kule rumaantii waxaan isticmaalnaa ama waxaan leenahay gaadiid badan baan leenahay oo isugu jira gaadiid yaryar iyo gaadiid waaweyn iyo warshadada markaas saliido badan baan ka isticmaalnaa saliidaan ka isticmaalno kule waxa weeyaan waxaa ka mid ah engine oil ka mid ah tabishinada gear oil ka mid ah waxa ka mid ah maxay hay'adaha hydraulics baa ka mid ah sidoo kale warshadahan leenahay warshadahan waxaan ka isticmaalnaa saliidaha industrial oils ama saliidaha mashiin warshadaha intaba rumaantii waan ugu mahadnaqaynaa kule muddada dheer waxaan ula joognay waxa weeyaan waa adeegooda ama barodhaga ay naga iibinayaan oo rumaantii aan aad iyo aad ugu qanacsannahay. anigoo ku hadlaya afka Birsan Spare Parts waxaan ku faraxsanahay inaan halkan maanta joogo anigoo ka mid ah macaamiisha la sharfay. tani waxay markhaati muujinaysaa sida wanaagsan ee wada shaqaynta Birsan iyo ADNOC ay u dhisan tahay mid ku salaysan kalsooni tayo iyo joogtayn adeeg. muddadii aan wada shaqaynaynay ADNOC waxaan ka faa'iidnay tayo saliideed iyo adeeg joogto ah oo la isku halayn karo. haddaanu nahay bahda geerashada saliidaasi waxaan u aqoonsanay saliid tayo badan saliid ahaan hydraulic ahaan hayd ahaan iyo wixii ku lug laba ilaa biyaha radiatorka tawaangida inay saliid quality la tahay oo aad u fiican ayaanu u haysanaa. saliidaha number 1 inay ka mid tahay saliid quality leh oo company la garanayo original ka soo baxda weeyaan. saliidaasi gaadiidka lagu shubaana aad bay feedback ay ka soo celiyaan ugu mahad celiyaan oo ilaahay saliid wanaagsan oo gubanay sida la ajligeed saliidaasi waa saliid tayo wanaagsan kuna habboon gaadiidka iyo makiinadaha lagu shubo. anigu waxaan ka socdaa shirkadda Hagen Spare Parts waxaanu ka mid nahay macaamiisha maxaa la yiraahdaa shirkaddan ADNOC. sidaas awgeed maadaama aanu spare parts tayo leh u doorno macaamiishayada sidoo kale waxaan u doornaa saliidaha tayada leh ee tayadoodu ay sarreyso ayaan u doornaa maxaa la yiraahdaa macaamiilka. sida ay geerashadeena waaweyn halkan imika ka hadlayay ay qireen qaar ka mid ah saliidan waxa weeyaan saliid aad tayadeedu ay u fiican tahay quality-geeduna uu sarreeyo. marka qofka customer-ka mar walba waxaan ku dhiirigelinaa wixii tayadiisu
ay shaqaynayso in maxaa la yidhahdaa uu qaato gaadhigiisana uu ku shubo saliiddana waxay ka mid tahay saliidaha aynu u doornay macmiilkayaga sidaa awgeed waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqanaa shirkaddan inoo keenta saliidaha ADNOC oo iyada lafteedu inta badan si ayna u kala goyn inaga haqabtirta macmiilkii maadaama aan macmiilkii iyada u dhaxayno aadna way u mahadsan yihiin. gabagabadii munaasabadaasina mas-uuliyiinta shirkadda ADNOC ayaa abaalmarino qaali ah oo isugu jira moobilada iPhone-ka iyo tigidho ay ku tegayaan dalka dibaddiisa guddoonsiiyey 12 macmiil oo ka mid ah macaamiisha sida fiican ugu xidhnayd shirkadda soo saarta saliidaha ee ADNOC. Xamse Qurbaani, Hargeysa.